وأنا سلام دمان صاحبتها كوحنا جنال كان بداية هذا يعني كذا ما عندنا سيد ونكسنا دلوا ساعتان مقالة برتن صادق وسولة وهذا صاحب بيال ما أنتم حربان عندنا وذا حق حقيقيين كوبن أو جارة فيلم كان كاي كوج هتاي متكم إذا أفلام تيسو ما لدأت كوج عشاي هذا واحد عشان إلى تنسنا لقي جوا وقت كي تياتر الهندي رسالة فيلم كان كوج هتاي هذا واحد عندنا وذا جدونا حقيقيين كوبن يصيدوا كله نتيجة عن فيلم كان صيدوا النقطة مركان كوب بلاو فيلم كاني وعصاب بحلي حلواتن كي عنده لحية 8 أكتوبر سنة دي كون سجال بقول سجاشني سديدي waxa hogaamiyalka wada ahayn Shaaruq Khan Rani Mukerji Kajal jilayaal badan ka soo muuqdeen oo ka mid yahay ninka lagu magacaabo Salman Khan oo ku lahaa door caawinaad ah ama door caawinaad xoogaa muuqaal fidii ayuu ku lahaa sidoo kale filimkan waxa ka soo muuqday jilaaga caanka ah ee ninka lagu magacaabo Nubam Khair ama baska waxa uu taqaano filimkani markaan eegno natiijada waxa uu noqday film all time blockbuster waana filimkii ugu weynaa ee soo baxay sanadii 1998 haddii aan eegno xaqiiqooyinka ka kooban ee laga diiwaangeliyay filimkani waxa la leeyahay filimkan waa filimkii ugu horeeyay oo director uu ka noqdo ninka lagu magacaabo Karan Johar xaqiiqooyinka kale waxa kamid ah sidoo kale waxa la leeyahay Shaaruq Khan ayaana ku encourage gareeyay ama ku dhiirigeliyay andhe saaxiibayaal in uu director noqdo ninka lagu magacaabo Karan Johar xaqiiqooyinka kale ka kooban ee filimkan laga diiwaangeliyay waxa kamid ah saaxiibayaal filimkan waxa loo bandhigay jilayaal dhowr ah oo kamid yahay Saif Ali Khan oo Saif Ali Khan waxa loo bandhigay doorka ninka Salman Khan ah oo iska diiday sidoo kale gabdhaha dhanka gabdhaha markaan eegno gabadha lagu magacaabo Tawakkalkana waa tirishada u dhaxda ninka lagu magacaabo Akshay Kumarne waxa loo bandhigay doorka gabadha Rani Mukerji laakiin waa iska diiday saaxiibayaal gabdhaha kale booskaas diido waxa kamid ah Ravina Tondon Ashwarya Rai Tabu Urmila Matondkar iyo sidoo kale Karishma Kapoor haddii aan eegno xaqiiqooyinka kale filimkan laga diiwaangeliyay saaxiibayaal waxa la leeyahay filimkan wuxuu ku guuleystay awaalmarin walba oo Hindiya laga dhigay sanadaasi ama awaalmarin walba oo film lagu baxsho filimkan waa uu qaatay saaxiibayaal marka la eego film fair hadhihin dhanka hablaha actorkii ugu wanaagsanaa tirshadii ugu wanaagsaneed atoor caawiye ugu wanaagsanaa dhammaan filimkan ayaa lagu baxshay saaxiibayaal xaqiiqooyinka kale waxa qayb ka ah saaxiibayaal waxa la leeyahay gabadha lagu magacaabo Kajal ayaa dhaawac yar soo gaaray intii ku guda jirtay duweysta heesta lagu magacaabo Ladkii Diiwaani dhaawacaas waxa uu ka soo gaaray dhanka ay wajiga saaxiibayaal xaqiiqooyin kale laga diiwaangeliyay filimkan waxa kamid ah waxa la leeyahay waa filimkan waa filimkii ugu horeeyay Kajal sidoo kale Rani Mukerji iskala soo muuqdaan sidoo kale labadan atrisho waa ilmo adeero sida shaac laga qaaday xaqiiqada ugu dambeysay filimkan in la wadaagi doono waxa weeyaan filimkani kujo hotay wuxuu kamid yahay filimada Hindiya ka oo lagu jeelay mid kamid ah wadamada Afrika kaas oo lagu magacaabo Maldives saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinkii koobnaa ee inta kala wadaagay filimka caanka ah kujo hotay kaas oo ay ku beegantahay maanta 25 sano guuladii ka soo wareegtay markii tiyaatarada Hindiya la saaray fadlan haddii aad muuqaalka heshay laag inoo saar oo aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena